waxaan fahmi laahay inaan maxramkeedii la joogto ma lala saaxiibi karaa sidee bay u taalaa taas maxramku se muxuu ahaa haddii la saaxiibayo inantiisa xaguu ka socdaa isagu saaxiibtinimase nin iyo gabadh ajnabiya ma dhex mari kartaa su'aashu se sidee u socotaa intaasoo su'aalaaba dee anna waan soo celiye ka jawaaba nin iyo gabadh way saaxiibi karaan haa ayaa waxa la leeyahay war wadaadku waxa uu ka miisay nin sheekaba wuxuu u khudbadaynayo u akhriyay lecture u jeedinay dhalinyaradeennan ku nool debadaha ee muslimka ah ayuu u jeedinayay lecture marka waxay ku adadkaayeen su'aalo badan ka weydiinayeen nin iyo saaxiibtinimada ee waxa la yiraahdaa saaxiibka ayaa aad ugu badan wadamada gaalada kaasay aad ugu celcelinayeen markaasuu caawo waxaan idin hayaa saaxiibtinimadii oo shareecadu banaysay markaasay yiraahdeen waa warba soo kordhay wax wanaagsan baad caawo sheegtay waaye noo sheeg asuu waa fiicantay sharcigu uu ogol yahay sharti yar un baad samaynaysaa shardiga yar waa maxay qabiltu nikaaxa un baad oranaysaa waxaad oranaysaa oo kaliya heblaaye guurkeedii waan aqbalay waalidkeeda intaad u tagtun baad leedahay ii guuri kadibna wuxuu koray waan ku guuriyay adiguna wuxuuna leedahay guurkeeda waan aqbalay kelmadaas oo kaliya baad oranaysaa saaxiibtinimada way banaantay iskala saaxiib jaamacadda markaad dhiganaysaan iskuulka markaad dhiganaysaan guriga markaad joogtaanba markaasay yiraahdaan that is easy ma intaasoo kaliyaaba oo shardiga yar un baa ku xidhan haa kaas hadaa uu fudud yahay si yar buu sheekhi u liqsiyay kaniinkii khayrka lahaa marka gabadh waad la saaxiibi kartaa maxramkeedu uu la joogo markaad ka mehersato dee haddaanad ka mehersaninna dee maxaa iskiin ag dhigaya waa dab iyo gaas miyaa la isu dhoweeyaa soo isku qarxi maayaan dab iyo gaas haddii la isu dhoweeyo nin iyo gabadh kale ajnabi ahoon isu mehersanayn maxaa la iskaga dhowaynayaa waxaa ka soo baxaya wixii aynu ka warramaynay ee ceebta ku ahaa dalkeenna iyo dadkeennaba markaa saaxiibtinimadaasi ma jirtee labada qof guur way ka wada hadli karaan aadaabtii sharciga iyagoo ilaalinaya way wada hadli karaan waana is arki karaan laakiin is arag dheer oo la istaawanaya sida muraayadda iyo isdhegaysi iyo sheeko badan oo la ismacaansanayo hadalka oo telefoonkii la iska macaansanayo iyo wada bixid badan oo la soo wada cashaynayo la wada dalxiisayo waxaas xagga shareecada xaraan weeye xalaal ma saadaradeed saaxiibtinimada kaliya ee aynu haynaa ee aynu ku hayno nusuusta waa taa weeye meherka ay isugu imanayaan nin iyo gabadh kale ajnabi wallahu a'lam